هذا هم هالسكين إذا عاد قبل دحى وأنا يوم هذا حلنا سيدا مارتي هذا الشعب كمان هو كل شقيصان runtii waxaan uga jawaabaa marka galmudug laba qafood iyo hal degme iyo hal gobol iyo galmudug ma laha galmudug waxaa iskale shacbiyad badan oo ayaa degan maamulka galmudugna waxaa lagu dhisay 11 qabiil ayaa lagu dhisay 11 qabiil aan looga baahan yahay aftida inay maartay iyagu galmudug siday rabaan ay u dhigtaan waxa ay heshiis ku yihiin ay sameystaan marka arrinkaas waxaan leeyahay arrin sax ma aha madaxda ka hadashana waxaan leeyahay inay ka laabtaan oo raali gelin ka bixiyaan ayaan ugu baaqaa runtii sababta waxa waaye taasi waxay keenaysaa kala fogaansho iyo in galmudug dhibka lagu sii haayo dabcan siday sheegeen heshiiskaasoo ka bilaabanaya waqtigoodu adigu madaxdii waxaad ahayd heshiiskaasi la socday ku qancay markii la soo gaaray markii fila Soomaaliya lagu saxeexay goobjooga ahaa adigu arrintaas wax ma ka ogeed ay leeyihiin heshiiskaas buu ka bilaabanaya waqtigeenu heshiiskii Djibouti waxa ku qoreeday qodobada ku qoraa waxa kamid ah in beelahana si cadaalad wax loogu qaybiyo oo si beelaha lagu qaato xildhibaanada loogu qaybiyo dastuurka labada dastuurna la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira labada dhinacna la isku daro horta marka ugu horeysa dastuur wala arkay oo la isku daray ma jiro waxa weeye kii u qoray markii hore oo ahlu sunna u qoraa kii ayaa la keenay khilaafku waa ka yimiday beelihii sidii wax loogu qaybinayna looguma qaybin beelo badan oo wax lahaa ayaa qabsan waa aan wax la gaarsiinin beelaha qaarkoodna intay lahaayeen ka badan ayaa la siiyey marka cadaalad kama dhicin meeshaasna waa la isku khilaafay khilaafka aad arkaysaana meesha uu ka soo bilowday halkaas ay mar haddii cadaalad la waayana waa la iskhilaafa marka waxaan dadka ugu baaqayna waxa waaye in maaragtay si cadaalada goboladan loo dejiyo dadka deegaankana lala wada tashado si cadaaladana wax loogu qaybiyo markaas waxaa imaan karaa wix heshiis lagu yahay laakiin wax la ordaayo maartay qolo ay iska wada qaayada ma shaqayn doono waa maartay gobolada khilaafka ayaa inuu sii soconaya meesha iga sii muuqanaysa laba garab oo maamulka yahay garabkiino maxaad ka aaminsantihiin waqtiga doorasho ay qabsoomi karto runtii doorashada waqtiga ay qabsoomayso beelahuna waa og yihiin siyaasiyiintuna waa og yihiin ragga hadda shala hadlayna way og yihiin waqtiga iyada ayadoo dastuurka ku qoran oo xildhibaanadana la soo xulaayo gudoonkooda iyo madaxweynayaasha la soo xulaayo waxay ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahay marka waqtigaas ayaa maartay la soo imaan doonaa dadkii ay rabaan iyo madaxdii ay rabaan iyo xildhibaanada ay rabaan ayana reer galmudug ay qoran doonaan beelida waa tahay marka waqtiyan rasmiyan ma noo sheegi kartaa xildhibaanada hadda waqtiga ay kala dirmayaan iyo kuwa waqtiga xildhibaano kale la soo dooranayo June ayay bilaabanaysaa bisha June ayay bilaabanaysaa xildhibaanada xilidooda 20 June waxa loo baahan yahay xildhibaano galmudug ay leedahay inay yimaadeen afarta bishana waa madaxweyne ay leedahay galmudug waa inuu yimaado mandate-ka rasmiga ah kaas waaye oo ay galmudug oo dhan ay ku midaysan tahay waa tahay mandate-ka marka laga soo tago qanacsanaan ma jirtaa ilaa waxa loo baahan yahay dad midaysan inay maamulka doortaan qanacsanaan ma jirtaa dhammaan dhinacyada maamulkan ku midaysana qanac oo lagu wada qanacsan ma jiro balki hadda waxaad arkaysaa in leeyahay inta waraaqa la akhriyo leeyahay dastuurkana noo ah heshiiska Djibouti noo ah meeshaas waa meesha khilaafku hadda meesha dadka rabay in la soo jiiro khilaafkii oo la sii kordhinayo waaye marka insha Allah galmudug waa u duceynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu soo dumo si maartay shacabka loogu daneeyo waa tahay ugu dambeyntii beelaha dhinacooda maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa beelaha in ay u diyaar garoobaan doorashada waqtigeedana ay u soo xaadiraan odayaasha ayay ahaayeen raggii soo xulay baarlamaanka haddana ayagaa soo xulan doona beel walbana intay leedahay way taqaanaa sharciga dastuurkana waa uga caddahay qolo walbana way haysataa qolo ku tuma kartana ma jirto qolo waxeeda qaadan kartana ma jirto xisaab ayaa ka dhaxaysa reer galmudug xisaabtaasaa la isugu imaanaa odayaasha iyo ayaa xil ka saaran yahay iyo wadankuna dowladda dhexe ayuu leeyahay oo raba inay iyaduna munaaqabayso oo haddii khilaaf yimaado ama iska horimaad yimaado iyo in doorashada maaragtay waqtigeeda lagu qabto looga baahan yahay inay ka soo saarto war
gudoomiye ugu dambeyntii adoo mahadsan muqdisho aad ku sugan tahay mas'uuliyiintii dadkan matalayatiin arrintan dawladda ma u bandhigteen waqtiga oo kooban qabanqaabo oo aan muuqanin sidii wax looga qaban lahaa loona gudageli lahaa ما يدب الشيسين صعطة دب الشيسين إن غير قلنا السياسيين تودا يا حل بدن كسرين هاي قلنا وحلال هاي سأكتب حل بانو السنة الرب بدن أي لا هاي وافرتني أفر جارايا والله بس ودورتي قلنا ولا بس ودورتي تكاس غير مرحلة هذا هي ستودن كنا قلنا يكسو جينا أصل كورة مركا خير قلنا دب يجو ير لما قفاضي يصدق قفاضي واحد منا معها وحوي حلا لقد جاري دونا إن شاء الله سنتين دولنا وقفتها مارت العالم كنا وقفها حاول قلنا نفسي وش قيمة صعبة وصعت. وهذا حق الله في الأيام مرك إن لسكوت تجا دور الشقة كذا عضو. رنتي ما خلع عدا إلا هدا ماشي اللي سكوت تجي دونا أنا مجال ما لحظة قبلك وحواف وصلنا هنا جو سمرات هاي haddii dhuusan reeb la helo in wax lagu dooran karana waa lagu dooranaa haddii dhuusan reeb lagu dooran waayana hadee shalayba waxba lagu dooranay waxa lagu dooran doonaa saldhigga baarlamaanka lagu dooran doonaa meeshii baarlamaanka uu ku shaqeynayo oo ah magaalada Cadaadis